بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاو تاريخ دوكو بيغانتا هاي بيشي شانات توان كيدي لو كوني لواتنكا ما هبينم أحد سيبحيسو سنين سوغليسو وحروا إن شاء الله هدو إله يرادو فيديو كان ير إنا دور قضب هالكاني أنك إرادو قضب كوكوات وحروا دولة سوماليا magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan in badan dhibaato ku soo laabatay dhibaatadaas oo biibaxo dowladani oo madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 3 sano iyo bar oo joog 3 mar ayay biibaxa imaatay 3dii mar waan fiirinaynay problemka iyo dhibaatada iyo qaabka uu wajahayo isoo ul tacaamilayo 3 sano iyo bar oo dowladan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweyne ka yahay oo hogaaminayay waan ka aamusneen waxaan fiirinaynay qaabka oo la tacaamilayo shacabka anagoo og jaaniska oo helay madaxweynayaasha ka horreeyay inay helin fursadda oo helay madaxweynayaasha ka horreeyay oo helin taageernimada helay iyo garab istaagoo helay oo shacabka ka helay madaxweynaha helay inuu jirin shacabku meeshay ka sugayeen ama meeshay ka filinayeen kumana soo bixin dhibaato badan ay shacabka ka tabanayaan hadal qanciyay iyo intaba kamaanan helin shacabki 3 sano iyo bar waxaan aruurinay dhibaatada ka jirta gobolka biibaxada 3 mar ku soo laabatay qaabka uu la tacaamilayo waxaan ognahay biibaxada u dambeysay dhibkii gaaray reer beledweyne dhimashada intii gaartay qasaarada burburkii magaalada ku imaaday wadooyinkii guriyihii iyo ganacsigii naf intaba lagu waayay intaas annagooda og Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuu baxay beledweynuhu ka dagooday daqiiqadeeru soo joogay biyuu lagu hadla galay soo ku soo galay wuu soo baxay xamar markuu imaadana $500,000 oo ballan qaaday inuu dhiibanay ilaa hadda laga mahayo waxaanu ognahay lacaga badan in lagu tabayo dowladda Soomaaliya oo hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ha kala badnaadaan waxaan haddii nahanay siyaasiyiinta gobolka Hiiraan ee magaalada beledweyne qaasatan magaalada beledweyne ka soo jeedo iyo shacabka ku noolba gobolka waxay kugu tabayaan lacag gaarayso $4,650,000 lacagaas waxay ka kala imaadeen $1,500,000 dowladda China keentay ayadoo waliba cash ah ilaa hadda kaama hayno shacabkii kaama hayo meesha gees waa laga sugayaa inaad ka jawaabtid waxa kaloo jiro $750,000 ee dowladda Sacuudiga keentay aydan ilaa hadda lagaama hayo waxa kaloo jiro lacago gaarayo $300,000 marwada madaxweynaha ee ka soo aroosay shacabka ku nool Mareykanka aydan lama hayo meesha ku dhibacday waxa jiro lacag 1 milyan ee ganacsatada Muqdisho ee ballan qaadeen dowladii meesha geesay aydan oo laga sugaya waxa jirto u dambeeyay lacag $600,000 ah ka imaatay dowladda Djibouti walaalaha nahnay ayadoo ka damqanayso shacabka ku nool magaalada beledweyne dhibaatadii gaartay waliba lacagtaas xoogeeda ganacsatada iyo shacabka dowladda Djibouti qeyralaha siiyo ayaa soo dhiibay iska soo arooriyay madaxweyne lacagahaas markii la isku daro $4,650,000 waa halka gees ayaa laga rabaa haddii aad lusan jirtay shacabka lacagahooda lagaga aamusi jiray 3 sano iyo bar waa lagaga aamusana laakiin maanta ma aamusi karno shacabkan baahidooda waa ka hadlaynaa maalin walbana u taagana hadduu Ilaahay yiraahdo 4 milyan
650 kun oo dollar lacag weyn waa magaaladaas haddii ku noqotani wax badan u tiri karto biyo xireen fiican ayay samayn kartaa weli biyo xireenkaas waxyaabo badan ugu faa'iideysan karnaa taas oo xataa korontada lagu dhalin karo mudan madaxweyne lacagtaasi meeshii ku dambeysay iyo meesha ku bixisay waan kaa sugaynaa inaad ka jawaabtid haddii dowladda runta laga sheego ama waxqabadkeedii ka gaabisay loo bidhaamiyo waan ogahay baraha bulshada shacab cayaan waxba qaban oo wax kale aan qaban oo dhaliilaha markii niila sheego soo caytamaya leedin way caytami karaan xor waa laakiin runta ka hadlayna intaan noolnahay mana aamusayno lacagtaas waa inaa keentaa magaaladin wax weyn bay u qaban kartaa mana lagaaga haraayo haddii adig ay kugu maqneen sheeg meeshay ku maqan tahay meeshaa ku bixisay gobolkii kuma maqno meesha kale aa geysa sheeg lacagta gobolka soo gaartay waa la ogyahay lacag 400 kun oo dollar ah ka imaatay walaalahin Somaliland iyo 130 kun oo dollar ganacsatada reer Beledweyne iska aruuriyeen 550 kun ayaa 530 kun oo dollar ayaa hadda wax lagu qabanayaa marka jaaniskii aa heshay iyo rabitaanka shacabka kamaan faa'iideysan waxbana uga maanta qaban waxaan kaa codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan kasoo jawaabtid lacagtaas meesha ku baxday iyo waxa ku qabatay sababtoo taa gobolka kuma soo laaban waxbana kaama hayno shalay hanaanka dowladnimada anaga ma diidin haddaanan reer Beledweyne ama gobolka Hiiraan hanaanka dowladnimada waan taageersanahay waxaan u aamusnayn 3 sano iyo barna waxay ahayd hanaanka dowladnimada anagoon hoos fadhin dastuurkii noowda yaalay anagoo dhooreyno ayaan u aamusnayn markaas intaan ka badan ma aamusnaan karno shacabka u hadlaynaa intaan noolnahay rabitaanka shacabkaan ku hadlaynaa baahida shacabka jirto dhabta aan ka wada hadlaynaa in aadin kasoo jawaabtaa lagaa sugayaa ma diidina hanaanka dowladnimada xildhibaanada gobolka matalo waa xildhibaano aan dhihi karna caadi qaatiyaal waa xildhibaano caadi qaatiyaal ah oon ka hadlin baahida iyo rabitaanka shacabka gobolka Hiiraan iyo matalaan ilaa iyo 32 xildhibaan waa mana ka hadlaan hal mar ay ka hadlaa baahida shacabka gobolka Hiiraan mana arkin hal mar ayagoo tagay oo soo kormeera meelii laga doortay mayna arkin qaarkood xildhibaanada gobolka matalo danaha shacabka inay ka hadlaan ahayd qaarkood waa ognahay kuraasay ku hurdaan qaarkoodna ugu codka dheer xildhibaanada waa tusaale haddaa soo qaado xildhibaan Jeesow ninka la yiraahdo Godax Barre mana ka hadlaan marna ayagoo maan arkin ka hadlayo baahida shacabka gobolka Hiiraan iyo dhibaatada mar ayagoo tagana ka damqanaana maan arkin laakiin dantooda bisay ka hadli yaqaanin dhima lahan way dhamaanaysaa waqtigu oo hadda 3 sano barbaa dhamaatay 6 bilood wax la eega idin haray wax ka yar meesha ku soo laabanaysiin iyo shacabka ugu soo wajiga soo keenaysaan waa isla wada fadhinaa laakiin caad qaatiyaaltiin waan idin sheegaynaa waan ognahay waan idinku baraarugsanahay laakiin way dhacdatanoo 4 sano dhamayst waan isku soo laaban doonine qodobka u dambeeyo oo raba inaan ka hadlo farmaajo ku baranay horta shacabkii ku barteen shalay haddii qaran nin muwaadin ah oo Soomaaliyeed iskaga dhigaysay waan aragnay horta waxa taa muwaadinimadaadii nin jeclaysigaaga waa baranay barasho labaad dadka kuma aqoonin laakiin si fiican loogu barto walaa dharagsan marka waliba waxaan ognahay dowladda Talyaaniga inay dhahday mudan madaxweyne saxiix inaan biyo xireen ka sameeyno inoo saxiix gobolka magaalada Beledweyne aan biyaha iska leexino inoo saxiix
aad ka hor istaagtaa tiri lacagtaan hal ii dhiibo anaa qabanay dowladda talyaaniga way ku saxantay inay kuu diido lacagtaasi sababta haddii lagu dhiibi lahay 4 milyan iyo 650 kun oo dollar meesha martaa marsiin lahayd waxba uma qabateen shacabkaas masaakiinta ah laakiin waxa u qabanaa gobolkii markii ku tiraadi talyaaniga dowladda talyaaniga kaa codsatay saxiix biixireenkaas anaa samaynaye inaa ka diido wad ognahay haddii aad muwaadinimo iyo soomaalinimo iyo qaran jecel ay kaa muuqato ummadda shacabka dhibaataysan ayaad u damqan lahayd una ogolaan lahayd inay dowladda talyaaniga meesha biixireen u qabato biixireen u sameyso shacabkaas dhibka haastana sanad kasta kusoo laalaabtane ee dhinac uga marin lahayd waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo talo usoo jeedinayo walaalaha reer beledweyne waa u jeediin dowlad idiin maqan ma jirto cid idiin maqanna ma jirto allahii idin abuurtay keliya ayaa idiin maqan waxaan idinka rabaa isku tashi hadda waa isku tashateen wax fiicanaa qabateen biyiyaa iska xirteen wax weynaana qabateen weliba hoggaanka ayaa si qaas ula hadlayaa oo ah hoggaanka ma ahan ani dhanka dowladda iyo hoggaanka hadda muuqdo oon wada aragno waxay noo qabteen khayr allaha siiye xaaji dhuguxu ugu horeeyo xaaji dhuguxu taariikhdaa ku xusi doonto shacabkaagii habeen iyo maalin u taagan tahay muddo 13 maalmood ka badan aad u taagan tahay biyahaas ilaah weyn ka sokow dhabarka u xiratay inaad ka leexisid shacabkaa ku xusi doono waxaa noo tartay iyo waxaa shacabka Soomaaliyeed u qabatay marnaba wax ka indhaha ka qarsan ma ahan waxa ka rabnay mudan dhagaxow maana waxa ka dhawaajisay 600 kun oo dollar walaalaha Djibouti soo dhiibeen inay soo gaarin gobolka ee dowladdu ku maqan tahay waa maasanta mar hor inaa ka dhawaajisay xilliga inaa ka dhawaajisay mar hor inaa sheegtay ahayd shaqada hadda qabanaysiin biyaha inay soo dhawaan ka hor inaa noo sameysaan ahayd hadda shaqada gacanta waa kula jirtaan shaqo fiicanna waa haasaan si dardargeliya oo mar walba joogteeya shacabkiina ku baxa ganacsatada ka qayb qaata in biyahaas la xiro ee mar dambe biyahaas magaalada kusoo fatihin ee ummadda biyahaas dhawaateen ka fikira mar walba oo wax wanaagsan qof walba gobolkaas wax u taro oo gobolkan ka soo jeedo taariikhda xusi doonto maalin wuxuu taray hal jawaan ninka keena hal carra ninka ku shuba hal saac ninka waqtigiisa geliya wax weyn u qabtay gobolka hooyadaasi badbaadiyay ilmaha carruurta badbaadiyay gobolka sharaftiisa u ilaaliyay waxaan leeyahay ganacsatada u tura shacabkiina markaanu kala maahan inaad dhiig ka miirataan ee inaad u turtaan u naxariistaan u dhimrisaan ayay ahayd shacabkiina mar walba ogaada una tura una dhimriya kana fikira waana mahadsantihiin dowladdana mana ka aamusi doonno ilaa iyo kasoo jawaabayso lacagtaas ee dhunsatay ama meesha ku bixisay inay kasoo jawaabto kaman aamusi doonno hadduu ilaahay yiraahdo 6 bilood wuu dhammaanaysaa laakiin hannaankii dowladnimada oo shalay uu kugu wareejiyey xashi sheekh iyo maanta meesha marayane shacabka u wada jeedaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.